بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan rabaa fiidiyogan inaan ku sharaxo qaabka loo isticmaalo systemka qaybtiisa xisaabaadka. qaybta xisaabaadku waxay ka kooban tahay qaybo badan sida qaybta laga soo geliyo lacagta ardayda laga qaado, qaybta laga soo geliyo expenseska ama kharashaadka iskoolku isticmaalo, iyo qaybtii laga bixinayo mushaaraadka shaqaalaha. marka qaybahaas oo dhan waxaan rabaa qayb ka mid inaan sharaxo oo ah qaybta laga soo geliyo lacagaha laga qaado ardayda ama fee collectionka. marka qaybtaas si ay u isticmaashadu waxay imaanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay fee collectionist haddii aad timaadid waxaa arkaysaa intaan oo qaybood. qayb kasta oo ka mid qaybahan waxay la xiriirtaa fee collectionka ama lacagaha laga qaado ardayda. qayb walba oo ka midna waxay ku timid waxaa naga codsaday qaar ka mid a iskoolada isticmaala systemka. marka waxaa laga yaabaa inaad u wada baahatid qaybahan iyo inaad qayb ka mid ka isticmaashid. marka qaybta aan rabno inaan sharaxno qaybahan oo dhan ma u baahnin inaan sharaxno. waxaan rabnaa laba qaybood oo ka mida inaan sharaxno fee collectionka. labada qaybood oo ah qaybta ugu horeysa oo ah qaabka loo soo geliyo lacagta laga qaado ardayda. qaabka labaadna waxa weeye qaabka loo soo geliyo ardayda bixisay lacagaha. marka labada qaab baan focus ka saarayna videogan. qaybta ugu horeysa haddaan ku horumarno waxay ka kooban tahay saddexdan qaybood aa ujeedid oo ah bilihii lacagta la qaadayay inaad soo gelisid, lacagaha noocyadooda inaad soo gelisid oo aad isku raacisid group sida wixii isku lacag laga qaado oo kale. tusaale ahaan form 1 iyo form 2 waxaa laga qaadaa hal lacag, waxaad ka dhigaysaa hal group. form 3 iyo form 4 na waxaa laga qaadaa lacag kale oo gooniya oo waxa weeye iyagana waxaad ka dhigaysaa hal group. sideedaad ilaa shanaad waxaa laga qaadaa hal lacag, waxa weeye is group baa ka dhigaysaa. koowaad waxaa laga qaadaa lacag gooniya, waxaa ka dhigaysaa group gooniya. labaad iyo saddexaad waxaad laga qaadaa lacag gooniya, waxaa iyagana ka dhigaysaa isku group. marka gruubyadu waxay ku saabsan yihiin wixii isku group ah oo isku lacag laga qaado baad israacinaysaa. marka waxaan ku hormarayaa qaybta type-ka ama noocyada lacagtu ay ka kooban tahay. cafwan waxay lacagtu ka kooban tahay type-ka waxa weeye qaybtan waxay ka kooban tahay bilihii lacagta la qaadayay halkan kasoo gashanaysaa. shaqada ugu horeysa qabanaysid weeye. markaad timaadid waxa weeye markaad soo gelinaysid formkan ayaad kasoo gelinaysaa. sidoo kale halkan waxaad ka arkaysaa fee type listigii oo ah bilihii hore ee lasoo geliyey. waan arki doonaa. marka waxaan ku hormaraynaa qaabka loo soo geliyo. waxaan imaanaynaa halkan ay ku qoran tahay magaca bisha aad rabtid inaad gelisid. tusaale ahaan waxaan rabaa bisha December inaan soo geliyo. halkan waxaa ku qoraysaa code aad ku garanaysid. tusaale ahaan bishaan codekeeda qoraysa oo ah 12aad waxa weeye waxay sheegaysaa inay tahay bisha 12aad. tusaale ahaan waxaan raacinayaa slash December baan raacinayaa. codeka waxa weeye bishaan 12aad oo ah bisha December baan codekeyga aanu ka dhigtay. qof walba isaga garanaya wuxuu ka dhiganayo. kadib waxaan leeyahay save markaan dhaho saa ujeedad listigii bay igu soo biirtay. haddii aan rabo inay wax ka khaldan yihiin bilahan hore oo kale aan rabo inaan edit gareeyo simple waxaan imaanayaa calaamadan edit ku qoran tahay. edit baan ku dhufanayaa. hadday wax ka khaldameen waan saxayaa. edit haddaan ku dhufto oo kale saa ujeedad wuxuu keenay qaanadii. kadib hadday wax khaldan yihiin markaan saxo baan dhahayaa save. sidaas ayay u save gareysmaysaa. markaan bilihii dhan halkan soo gashto oo kale November, December, January koowaad labaad wixii dhan aan soo gashto ma waxa weeye waxaan u gudbiyaa inaan soo geliyo groupyadii ay lacagtu ka koobneed. marka groupska saan usoo geliyo waxaan imaanayaa meeshaan ay ku qoran tahay fee group. haddii aan imaado saa ujeedid iyadana waxay leedahay list oo ah meeshii waxa weeye aad ka arkaysay waxa groupyadii hore lasoo geliyey iyo meeshaan oo ah meeshii laga soo gelinayay groupka cusub. marka saa ujeedid form 1 iyo form 2 baa inoogu jira oo macnaheedu iyo form 1 lacag gooniya laga qaado, form 2 na lacag gooniya. marka waxaan isku lacag ka dhigaynaa galaaska form 3 waxaan dhahayaa slash form 4 oo macnaheedu tahay labadan galaas baa waxa weeye isku group ah, isku lacag baa laga qaadaa. hadday saddex galaas yihiin waxaad ka bilaabaysaa galaaska lacagta laga qaado iyo galaaska u dambeeya. tusaale ahaan waxaad leedahay shanaad ilaa koowaad baad dhahaysaa oo ah galaaska shanaad ilaa galaaska koowaad. macnaheedu waxa weeye inta udhexaysa waxa laga qaado lacagtaas. kadib waxaad dhahaysaa save. saa ujeedid waxay noo soo gashay maaragtay groupkii form 3 iyo form 4 ahaa. haddaad rabtid inaad delete garaysid halkan ayaad ka delete garaynaysaa. haddaad rabtid inaad delete garaysidna sidoo kale halkan delete ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. wax aad u fudud. markaan soo gashano groupyadii
iyadana waxaan ugu sii gudbaynaa qeybta saddexaad oo ah fee masterkii. fee masterka waxa weeye waxaad kasoo gelinaysaa lacagihii tiradooda inta ahayd iyo waqtigii maaragtay lacagtan waxa la bixinayo. saa ujeedid marka fee masterka timaadid wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. qeybtan oo ah wuxuu kutusayaa liisyadii hore loo soo geliyey iyo qeybtan oo ah meesha laga soo gelinayay fee masterka cusub. marka haddaad halkan fiirisid waxaa inoogu jira waa laba glass waa form 1 iyo form 2 oo laba lacagood laga qaadayo. qolo walbana waxa weeye bilahii lacagta laga rabay halkan ay ugu dhex jiraan saa ujeedid. marka waxaan rabnaa inaan mid cusub soo diiwaan gelino oo ah glasska form 4 iyo form 3. simple waxaan ku dhufanaynaa groupka halkan ku dhufanaynaa gruubyadii aan samaysanay. waxaan leenahay form 3 iyo form 4 groupka la yiraahdo baan lacag usoo gelinaynaa. lacagtan usoo gelinayno waa tan bilihii buu isoo saaray. marka bishaan rabay baan dooranaya August, September, October, November, December. marka inagu hadda waxaan rabnaa inaan doorano December. halkan waxaa kusoo saaraya due date-kii oo waqtiga waxa weeye ugu dambeeyay lacagta la bixinaya ah. haddii aad rabtid waa ka tegi kartaa, haddii aad rabtidna waad soo gelin kartaa. marka hadda waxaan joognaa August, waan dhaafeynaa, waxaan tegaynaa September, October, November, December baan imaanaynaa oo ah bishii aan rabnay. waxaan leenahay lacagtan waxaa la bixinayaa bishan December 15keeda ugu dambeyn baa la bixin karaa. halkan waxaan gelinayaa marka lacagtii laga rabay form 2 iyo form 3. galaasyada kale waa 130 oo kale, kuwan waxaan leenahay $150 baa laga qaadaa labadan galaas. kadib waxaan dhahaynaa save. markaan dhahno saa ujeedid listigii bay inoo soo gelaysaa. haddii aad u baahan tahay inaad bil kale ku dartid waxa weeye haddana isla meeshii un baad imaanaysaa. waxaad leedahay form 4 iyo waxaad doorataa form 3 groupka la yiraahdo. waxaan rabaa inaan usoo geliyo markaan bisha August oo bisha hadda ku jirna ah. waxaad leedahay waqtiga ugu dambeeya la bixin karo lacagtan waa 15 August oo kale. lacagta laga rabana waa $150 bishan. halkan ayuu inooga soo saaraya saa ujeedid. waxaa ujeedaa laba bilood buu hoos dhigay December iyo August. haddii aad bil saddexaad rabtid simply waa haddana sidoo kale un baad samaynaysaa. saas ayuuna kugu soo darayaa. waxaan dhahaynaa 14ka lacagta la rabana waa $150. saa ujeedid bishii saddexaad buu inoogu soo daray, 8aad, 9aad iyo 12aad buu inoo soo geliyay. marka haddii aad rabtid inaad waxa weeye qayb ka mida maaragtay aad edit garaysid ama delete garaysid waxa weeye iyagana sidoo kale halkan ayaad imaanaysaa ka edit garaynaysaa. marka waxaan rabaa kan inaan ka saaro oo kale August oo kale delete baan iri. saa ujeedid way ka baxaysaa. sidoo kale September waxaan rabaa inaan ka saaro, sidoo kale iyaduna saas ay uga baxaysaa. marka saa ujeedid waxa weeye glasska form 2 iyo form 3 waxay inoogu jirta bisha 12aad lacagteedii oo ah $150. marka intaan sameeyo waxaan imaanayaa qeybtan u shisheysay geeskan ayaan imaanayaa. waxaad ujeedaa labada calaamad oo ah delete iyo assign fee oo ah meeshii laga soo gelinayay ardayda lacagta laga rabo ayaad ku dalaacaysaa. waxa weeye waxaan leenahay assign fee haddaan dhahno oo kale wuxuu keenayaa khaanadii ardaydu ku jirtay oo kale. waxaan dooranayaa glasskan rabay, tusaale waxaan leeyahay form 4 baan rabaa. form 4 markaan doorto qaybtu kasii ahaa ma dooranayo sababtoo form 4 oo dhan baan rabaa inaan lacagta ku dalaaco. sergi baan leeyahay. marka form 4 haddaan ku dhufto saa ujeedid laba arday baa inoogu jira. waxaan leeyahay all, hadday 100 arday kugu jiraan all baa dhahaysaa, save baa dhahaysaa. wuxuu leeyahay ma hubtaa ahaa baa leedahay. saa ujeedid saasuu kugu soo geliyay. marka galaas ka mida waxaan soo gelinay haddeer form 4radii oo dhan baan usoo gelinay. marka waxaan rabnaa form 3yadii iyagana inaan usoo gelino. sidoo kale form 3yada marka soo gelinay waxaa imaanaya halkan aan imaanayaa galaas ku qorantay form 3 un baan dooranayaa. kadib sergi baan leeyahay. iyagana form 3ga dhan buu isu taxay. saa ujeedid form 3na waxaa ku jira laba arday. kadib sergi baan leeyahay, all baan dhahayaa cafwan. all markaan dhabaan leeyahay save. wuxuu leeyahay ma hubta ahaa. saasaan lacagtii ugu soo dalaca ardayda. qaybtii koowaad waxa weeye intaas ayay noogu eg tahay. waxaan tagnay marka hore taybkii oo lacagaha maaragtay bilihii ay ka koobnaa la soo geliyey. waxaan ku xijinay qaybta gruubyadii oo ah wixii isku lacaga inaan isku group ka dhigno. tusaale ahaan form 3 iyo form 4 oo kale baa inagu soo gashanay oo waxaan ka dhignay isku group waana isku lacag. kadib marka inta sameeyno waxaan tagaynaa fee masterkii oo ah meeshii laga soo gelinayay wixii isku group ah lacagtii laga qaadayay, lacagta waqtiga la bixinayay iyo ardaydii lacagta laga rabay in lagu dalaco baan qaybtan ku sharaxnay. qaybtii koowaad sidaas ayay kugu eg tahay. waxa weeye waxaan soo gashanay ardaydii aan lacagta ka rabnay iyo intii aan ka rabnay qiimo. marka intaas sameyno waxaan u tagaynaa qaybteeni kale oo ahayd qaabkii looga qaadayay ardaydii lacagta bixisay. marka si aad waxa weeye ardayda lacagta bixisay aad uga qaadid
simple waxay imaanaysaa qaybtan ka sarreysa ay ku qoran tahay sergi do fee oo ah raadi lacagta ardayda lacagta lagu leeyahay. markaan ku dhufano waxa ugu horreeya arkaysi waa groupkii. waxaan tegaynaa groupkan rabnay waa form 3 iyo form 4 soo ma ahan. form 3 iyo form 4 waxay noogu jirta hal bil oo ka mid ah oo bisha 12aad saan soo gashanay. marka intaa ku dhufto waxaan leeyahay galaaska haddaan rabo sii dooranaya, haddaan rabo sergi baan leeyahay groupkaas sababtoo ah laba galaas baan soo gelinay oo ah form 3 iyo form 4. marka sergi baan leeyahay automatic wuxuu igu soo saarayaa labada galaas wixii arday ku jirtay oo lacagta aan wali bixin. cidii lacag bixisay kuu soo saaray maayo kaa reebayaa. saa ujeedid afartii arday bay noo soo saaray oo ahaa labada galaas ku kala jiray, ardayda form 3geed iyo ardayda form 4keed. marka simply ardayga aad rabtid waxa weeye baad dul tegaysaa meeshaan ay ku qorantay add fee baad dooranaysaa, kadib saas lacagta isku bixinaysaa. waan arkaynaa haddii ardaydu ay aad u tiro badan tahay oo kale halkan ayaad imaanaysaa sergid ku qoran tahay. tusaalahaan ardayga waxaad leedahay roll numberkaaga ii sheeg, wuxuu ku yidhi 00307 oo kale buu ku yidhi. saa ujeedid ardaygii keliya inoo soo baxay. markaas ayaad u fiirinaysaa ardayga inta lacag lagu leeyahay 150 baa lagugu leeyahay. markuu dirana waa ka saaraysaa. haddii laakiin ardaydu maaragtay ay ku kooban yihiin oo kale simple ardayga dul tegaysaa, magaciisa ku dhufanaysaa, add fee baa leedahay, saasay ku bixinayaa. marka haddii aad magaciisa garanaysay ardaygana waa ku qoraysaa faarax jaamac warfaa oo kale. haddaan ku qoraynaa ardayga isxaaq la yidhaahdo, saa ujeedid isxaaq kaliya inoo soo qabtay. marka qaybtaasi waxay kuu fududeynaysaa ardaydu markay badan yihiin inaad ka dooratid ardaygii aad rabtay. marka simple ardaygan ugu horreeyaan u imaanaynaa. waxaan leenahay ardaygan caasho la yidhaahdo waan rabnaa in lacagta aan gelino ay bixisay. waxaan leenahay add fee baan ku dhufanaynaa. add fee markaan ku dhufano saa ujeedid wuxuu inoo soo saaray lacagtii lagu lahaa. cafwan lacago kala ku jiro oo waa deema barnaamijku waxa weeye waxyaabo badan oo maaragtay dadku ay ku tijaabiyaan baa isaga jira. saa ujeedid lacago hore oo waxaa ku jira maaragtay tijaab ahaan loo soo geliyey. marka lacagteeni inagoo aan rabnay waa tan. waxa ku qoran form 3 form 4 group baa ku qoran soo ma ujeedid waa $150. simple waxaan ku dhufanaynaa lacagtaan click siinaynaa, kadib waxaan ku dhufanaynaa collect select saan lacagta ugu qaadno. ama waxaan dhihi karnaa geeskan intaan imaano meeshaan ay blast ku qoran tahay oo ay ku qoran tahay add fee baan ku dhufanaynaa. marka labada qaybood waxay ku kala duwan yihiin. ardayga hadduu lacagta wada diro 150 ka diro simply click baa siinaysaa, halkaan aa ku dhufanaysaa, saas ayuu ku wada bixiyay baa leeyahay lacagtii. hadduu lacagtii qayb bixiyey laakiin waxa weeye halkaan ayaad imaanaysaa add fee baa ku dhufanaysaa, qaybtii uu lacagta ka bixiyey baad u gelinaysaa. waxa weeye qayb baana lagu sii yeelanayaa oo kale markaa isticmaalaysa weye. marka waxaan leenahay click baan siinaynaa, labada qaybood baan fiirinaynaa. click markaan siiyo ardaygan lacagtii wada bixiyey waxaan ku dhufanayaa collect select meeshaan jaalaha ah. wuxuu ii soo saarayaa taariikhdii lacagta bixiyey ardaygan. waxaan leeyahay maanta uu bixiyey 24 bisha ah. noocu lacagta uu bixiyey waa cash. haddaan nood yar ku qoranayo lambar ka diray iyo waxaana halkaan ayaan ku qoranaya. kadib waxaan leeyahay pay markaan dhaho sidaas ayuu leeyahay lacagta uu ku bixiyey oo ah paid. lacagta markuu bixiyey waxa weye saa ujeedid way dhammaystiran tahay. marka qaabkaas ayuu lacagtu waxa weeye ku bixin karaa ardaygu. sidoo kale wuxuu ku bixin karaa qaab kale oo ah in ma garanaysaa lacagtii uu qayb bixiyey oo kale. haddaan iyadana u imaano qaybta hore waan aragnay markuu lacagtii wada bixiyey weeye. qaybtan labaad haddaan aragno ardaygii lacagtii ma wada bixin oo kale $100 uu bixiyey. marka iyada halkaan intaa ku dhufatay select ma dhahaysid sababtoo ah select waxaa dhahaysaa lacagta ardayga markuu wada bixiyo un. marka haddii aad rabtid ardaygii lacagtii inuu qayb bixiyey waxaa ku dhufanaysaa add fee meeshaan ay ku qoran tahay. add fee markaa ku dhufatid wuxuu kuu soo saarayaa taariikhdu bixiyey, amountiga halkan ay kugu jirtaa laga rabay. kadib amountiga un baad bedelaysaa. waxaad leedahay wuxuu bixiyey $100 buu bixiyey baad leedahay. marka intaad samaysid waxaa ku dhufanaysaa collect fee. haddaa ku dhufatid wuxuu ku dhahayaa partial buu lacagtii bixiyey soo ma ujeedid. lacagta laga rabaa 150, wuxuu bixiyey $100, waxaa ku dhiman $50. saas ayuu kugu sheegayaa. marka qaabkaas ayuu isna waxa weeye lacagta usoo gelin karaa oo ah in uu lacagta qayb ka bixiyey. marka waxaan rabnaa lacagtan oo kale way khaldantay inaan ka celinaan rabnaa. lacagtan oo kale inaan dib u celinaan rabnaa oon dhahno lacagtan ardaygu ma bixin. simple waxaad imaanaysaa halkaan ay ku qoran tahay reversiga ama calaamadan wareegsan oo ku dhufanaysaa. waxaa leedahay lacagta ka celi. wuxuu ka dhigayaa inaan wali la bixin. reverse markaan dhahno lacagtii buu ka celinayaa. saa ujeedid wali ma bixin buu leeyahay. marka labada qaab ayaa lacagta loo bixiyaa. qaabkaana lacagta waa looga celiyaa reversiga.
qaabka saddexaad aan arkayna waxa weeye qaabka lacagta markuu ardayga bixiyo loogu daabaco rasiidka. Simply lacagta waxaan dhahaynaa wuu bixiyey oo kale 24 bishuu bixiyey, waxaan dhahaynaa pay. marka intaan dhahno waxaan tegaynaa meeshii lacagtan ku dhufanayna, waxaan dhahaynaa meeshaan ku qoran tahay print select ama printigan hoose ayaan ku dhufanaynaa. markaan ku dhufano saa ujeedid wuxuu inoo soo saaray cafwan mararka qaarkood waxa weeye markuu browserkaagu update ahayn qaabkan ayuu kuu soo saarayaa. marka 3 jeer oo kale waa inaad ku celisid, 2 jeer hadduu inaga diiday warqaddii nooma soo saarin, mar saddexaad ayaan ku celinaynaa. saa ujeedid hadda wuu inoo soo saaray. marka saa ujeedid 2 warqad buu iga dhigay, waa 2 copy. copy waxaa iskale ardayga xafiiska qaadanaya, copyna waxaa qaadanaya ardayga. marka waxaan rabnaa labadan copy inaan hal copy ka dhigno, hal warqad aan ka dhigno. marka waxaan sameynaynaa saan hal warqad uga dhigno, qaybtan ayaan imaanaynaa settingka, waxaan leenahay view aan dhahaynaa. marka ugu horeysa waxaan ka qaadaynaa meeshaan header footerkan ka qaadaynaa, background graphicskan u daaraynaa. kadib waxaan imaanaynaa halkaan ay ku qoran tahay scale, waxaan custom baan ku dhufanaynaa, halkaas waxaan ka dhigaynaa 100 iyo 150. warqaddu way soo weynaatay saa ujeedid, laakiin weli waa 2 warqadood. marka waxaan sameyneynaa si aan hal warqad uga dhigno, waxaan sameyneynaa waxaan ku dhufanaynaa bearsheet, 2 ka dhigaynaa, waxaan dhahaynaa landscape. sidaas ayay hal warqad noogu noqotay. markaasaan print dhahayaa. marka sidaas ayaan warqadda ugu daabacaynaa ardayga. fiidiyada dambe waxaan ku arki doonaa qaybaha kale ay ka kooban tahay lacagta iyo imtixaanaadka. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. wixii aad fahmi weydaan waad soo weydiin kartaan. mahadsanidin.